caawa habeenkii ugu dambeeyay sanadka daqiiqado yar ayaa ka dhiman waxaan joognaa fagaaraha Champs-Élysées dadweyne fara badan ayaa isugu yimid magaalada Paris sidaad arkaysaan waa taaladii Champs-Élysées dadweyne fara badan ayaa isku soo baxay waxay soo dhaweynayaan sanadka cusub ilaahay ka dhigmid qeyrkiisa wata si aan u ogaado xaaladda ayaan dadweynaha kala qayb galaya caawa nalal fara badan oo ceen ayaa laga shidayaa ciidamada ayaa meel walba xiray si ammaanka loo sugo daqiiqado yar ayaa ka dhiman qof kasta wuxuu danaynayaa inuu soo dhaweeyo uu noqdo midka asaga ugu horeeya familiyadii oo dhan ayaa banaanka u soo baxay si ay u xusaan maalinta Paris habeenka sanadka cusub soo galaayo dadkaas arkaysaan waa kumanaan kun dad gaaraya oo isugu soo baxay fagaaraha Champs-Élysées oo taqaanaan wadada weyn wadooyinka waaweyn ee fagaaraha galaya dadweynaha si aad iyo aad isugu ciriirinayaan si ay u soo dhaweeyaan sanadka cusub habeen wanaagsan ayaan leenahay sanadkan si dhamaanaya daqiiqadaha yar ee ka harsan waxaan u rajeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan nabad iyo horumar iyo barwaaqo inta dhimata Allah u naxariisto inta noolna nabad Allah siiyo horumarna waa u rajeynayaa caalamka dhammaan ummadaha caalamka ku nool ayaa caawa sanadkan cusub soo dhaweynaya sanad kasta waa sanad cusub hase yeeshee haddana dadweynahan waa kuwa aad u xiiseynaya inay soo dhaweeyaan sanadka cusub sidaad arkaysaan wax yar ayaa ka harsan daqiiqado yar ayaa ka harsan meel kasta ayaa lisaga yimid meel walba ayaa lisaga yimid si ay u soo dhaweeyaan dadka meel lugta la dhiga ma lahan galabnimadii ayaa dadka hore u yimaadeen si ay u helaan meel ay istaagaan nalal cayn ayaa laga shidayaa nalalkaas oo caymo kala duwan ama noocyo kala duwan ah markaan imaanaynay dhibaato ayaan ku soo galnay sababtoo ah is-cariiriga dadka ayaa aad u badnaay barnaamijkan haddii ilaa yiraahdo waa tijaabo waxaan gelin doonaa YouTube-ka haddii ay macquul noqoto insha allahu tacaala YouTube-kaygana waa Khadiija Qalanjo Maxamed ama Khadiija Maxamed Qalanjo insha allah mar dhow ayaan furay kastoo weliba dib habeen aan ku wado markaan dhammaystiro laakiin hadda wuu shaqaynayaa anyway inkastoo barnaamijyo aansan ku jirin barnaamijkan si tijaabo ayaan u gelin doonaa haddii ilaa yiraahdo haddana halkan waa live Facebook aan isleeyahay dadweynaha ay idina qaybsadaanoo dad badan oo jecel Paris inay dalxiis u yimaadaan ka soo qayb galaan nasiibka aan u helin waxaa la soo qorayaa inta dad tirada ka soo qayb galaysa caawa halkan taagan waxaa jira wadooyin waaweyn oo gala fagaarahan Champs-Élysées waa meelaha lagu xuso dawladda waa meelaha la isugu soo baxo markii ay kooxaha ciyaartooyda ay badiyaan waa meesha wasiirada iyo madaxweynaha iyo markii madaxweynaha la magacaabo halka isugu yimaadaan meesha lagu xuso fagaaraha weyn waay meeshan waa meel caan ah meel caan ku ah dalka Faransiiska gaar ahaan magaalada Paris isku socodka ayaa aad xoogaa u xanibmay maadaama tahay sanadka cusub si ammaanka loo sugo waddanka Faransiiska labadii sano ugu dambeeyay ama saddexdii sano ugu dambeeyay xoogaa carqalada ayaa ka jiray waxyaabo ayaa ka dhacay sidaas daraadeeda isku socodku waa uu yar yahay si adag ayaan ku imaanay malaayiin kun oo qof kumanaan kun oo qof ayaa ka soo qayb gashay wax yar ayaa ka harsan
inta yaroo harsan qof walba wuxuu jecel yahay inuu soo dhaweeyo aniga caawa waxaan halkan u imid bal inaan ogaado jawiga siduu yahay maadaama baryahan ay jireen dhibaatooyin badan oo banaanbaxyo rabshado wata oo meelahan dadka laga joojiyey caawa way shaqaynaysaa dadka waa loo ogolaaday weliba waddanka faransiiska waa waddan dimuqraadiyad ka jirta ammaankana aad ayay u sugaan inta badan falal waa iska dhacdhacaan laakiin inta badan waa waddan dimuqraadiyada ammaankiisa marka ammaanka aad ayaa lasugu halayn karaa waa dal waddanka hagaagsaday waddankeenana waxaan jecelahay insha allahu tacaalaa inuu sidaan oo kale noqdo mar kale ayaan idin leeyahay habeen wanaagsan waa Khadiija Qalanjo ama Khadiija Maxamed Jimcaale Qalanjo oo isku sugan fagaaraha weyn ee Champs-Élysées magaalada Paris dadweynahan ayaan kala soo qayb galay si aan bal ula qaybsado farxadda dadweynaha ay muujinayaan caawa habeenkii ugu dambeeyey iyo daqiiqadihii ugu dambeeyey iyo sakanadii ugu dambeeyey ee sanadka 2000 lagu soo dhaweynaya sawaxanka aan maqlaysaan waa magaalada Paris dadkii isugu soo baxay fagaaraha jooga fagaarahan waa fagaare caan ah oo sida aad ka aragteen markii la dooranayay madaxweynaha hadda madaxweyne kasta markii la doorto waa halka ay dawladdu degan tahay waa halka xilka markii lagu wareejiyo ay ku soo bandhigaan damaashaadka iyo xil wareejinta iyagoo fardaha gaashaaman iyo ciidamka qalamka sida ee u tumaan muusikada ee astaanta caanka ku ah ee dalka Faransiiska soo dhawaada ayaan idin leeyahay soo dhawaada Facebook live ma soo galo laakiin inta badan waxaan isleeyahay caawa uga faa'iideeyay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaan kuwa Yurub jooga kuwa Mareykanka jooga kuwa Amerika oo dhan Soomaaliya Afrika Soomaalida meel kasta joogaan iyo waliba jaaliyada Djibouti dhammaan habeen wanaagsan ayaan idin leeyahay damaashaadka aad u jeedaan saxwaxanka qaylada buuqa waa dadweynihii oo isku garbinaya sida ay uga la qayb qaadan lahaayeen dadweynaha farxadda sanad kasta farxad way iska jirtaa laakiinse kolley annaga maalmo gaar ah ayaan leenahay wadamada islaamka laakiinse waa sanad la iska soo dhaweeyo oo caan ku ah adduunka maadaama la tirsanayo qof walba taariikhda uu dhashay iyo taariikhda iskuulka la geeyey iyo lagu tirsado sanad kasta marka waa sanadkii hadda nalka waa la yara damiyey nalal caynbaceen ayaa la shidaya goordhow nalkii iyo waxaa bilaaban doona nalalka isbedelka ahaa calankaas arkaysa calanka Faransiiska 1200 waxa weeyaan waxaad u jeedaan dabridka oo ah markii la rido wuxuu bixiyaa caynbacayn kalara caynbacayna ma maqasheen kalara caynbacayna capital Paris ayaa lagu soo qoray fagaaraha weyn mar kale habeen wanaagsan dhammaan asxaabta meel kasta oo aad joogtaan سفيعاً كلهم مقشان I don't know ماشي بوق بدن أيها كسعة ما فهم كرو إن كي جساني مقشان إن كله بل إيسو قرأ حتى مقشان وأكو مقلنا because حتى ريزو في عن مجرو أم بإنترنت كاحن ما دام ضد فربنا سكوبي ما دين ماشن وسجينا مردو isbedel ayaad maqlaysaan sanadka cusub
oo la soo dhaweynayay sanadkii hore oo la sagootinayo hodan oo Allah hayo sanadkii hore tagay maxaa hodan oo Allah hayo sanadkii hore tagay sanadka soo socda hirtidiisa naga qabo ilaahay khayrkana waafajiyo waxaan leenahay sanad wacan maalmo wacan habeen wacan fiid wacan caawa lama seexanin waa la soo wada jeedaa wax seexday ma jiraan turafeelka waa la joojiyey muddo 3 sano ah laguma sameynin sarta daarta dheer ee caanka ah birta dheer ee caanka ah waa la joojiyey sabab ammaan darteed ayaa loo joojiyey waxankaas aad maqlaysaan waa dadweyne ciidamada sida gaarka u tababaran ayaa waxay ridayaan dabrid ku saabsan fantasiyaha aan ku soo noqono waxa loo joojiyey 3 sano turafeel birta dheer ee turafeel waa la joojiyey sabab ammaanka la xiriira aawadeed ayaa loo joojiyey laguma qabto damaashaadyada maadaama dalka Faransiiska sanooyinkii dambe ugu dambeeyay ka dhaceen rabshado iyo dhibaatooyin meelo badan dad la laayay marka dawladda ayaa ammaanka darteeda u joojisay dhowr kun oo ciidan ah ayaa magaalada Paris ammaankeeda sugaayo raalli ahaada haddaad macnihii dareenteen jugjug dadka waxaa la shiday nalalkii artificialka ahaa ee caynbacaynka ahaa buluug casaan cagaar jaallo madow ma jiro ما إيه مقشان وانا الآد وقرح بضن ودن كيننا وحان جعلها إنه سيدان وكلا نقض إن شاء الله تعالى وحان جعلها ودن كيننا سيدان وكلا إنه نقضو نبض يفرحد يولي ما إنه كو قاران aad ayaan u jeclaan lahay wadankeena gaar ahaan magaalada muqdisho waxaan leeyahay habeen wanaagsan ilaahay nabad ha igu gaarsiiyo sanadkan kiisi kale inta dhimata Allah u naxariisto inta dhibaatada gaartayna Allah ka badbaadiyo caafimaad buuxa Allah siiyo sanooyinka soo socdana ilaahay nabad iyo barwaaqo iyo bashbash iyo baraare Allah magaalada muqdisho waa magaaladii aan ku dhashay aan ka imid dalka Faransiiska maadaama aan ku noolahay dhammaan wadanka Soomaaliya goboladeeda meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay habeen wanaagsan sanad wacan idinkana sidoo kale bashbash barwaaqo nabad waarta ku waara ayaa idin leeyahay meel kasta aad joogtaan ummadda Soomaaliyeed dhammaan anigoo kala reebin iyo waliba dawladda Djibouti ama wadanka Djibouti iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaan maadaama ummad Soomaaliyeed aan nahay waxaan leeyahay habeen wanaagsan ayaan leeyahay sidoo kale dadweynaha Djibouti wadankan waa wadan
ay dadkiisu jecel yihiin inay ammaan helaan inay nabad helaan inay nabad ku noolaadaan qof kastoo dareemo inay amni daro jirto number ayuu wacaa waa dad isku xiran waa dad wadaniyiin ah waa waddan dimuqraadiyad ah waa waddan dimuqraadiyad ah dad isjecel haddii waddaniyad ay jirto waxba ummadda Soomaaliyeed aan isleeyahay kama halaabi lahayn isku duubni ay sameeyaan wax kasta isla jeclaadaan waddaniyadda waa koow sababtoo ah waddan kasta isaga dadkiisa ayaa badbaadiya dadkiisa ayaa wax u tara dadkiisa ayaa dhisa dadkiisa ayaa dhibaatada ka ilaaliya marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajeynayaa sanadkan cusub in ay u noqdo haddaad maqlaysaan weli barnaamijkii ayaan ku jirnaa saacaddii ayaa dhow insha allah Quelle heure? Wait, Il reste combien? My phone. Il reste combien? 10 minutes. 10 minutes. Inch'Allah. Inshallah. Inch'Allah. Next year, good year. Bonne année. طبعا دقيقة يا كحسن 10 دقيقة يا كحسن إن شاء الله 10 دقيقة يا سجينا انت halkan nagala socotaan waa Facebook oo idinkaga soo tabinaysa fantasiyaha magaalada Paris fagaaraha Champs-Élysées waa Khadija Qalanjo oo idin habeen wanaagsan sanad cusub sanadkan sanadkiisa kale ku gaara horumar iyo nabad mar kale ummadda Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan dhammaan gobolada Soomaaliya waxaan leeyahay sanad wanaagsan nabad ku waara inkastoo aan isleeyahay kolley waddan islaam ayaa nahay waqtiyo waxaan leenahay aan la xuso maalmaha laakiin waa sanad cusub oo mar kastana sugaaya oo lagu xisaabtamo marka waxaan kala qayb qaadanaynaa daawashada siday u dhacayso damashaadka fantasiyaha soo dhaweynta sanadka 2020 iyo sagootinta sanadkii tagay 2019 haddii aad maqashaan sawaxan iyo buuq dadka ayaa tirada ka badatay dadka ayaa aad u tirada uga batay maadaama dadka ay tirada ka badatay sawaxankan u batay ismaqalka ayaa yar haddaad maqlaysaan bal ii soo qora haddii jiraan dad i maqlaayo ii soo qora inaad i maqlaysaan iyo sidaa ii maqashaan aniga aad uma imaan jirin waa imaadaa meeshan laakiin waxaa imaadaa marka ciyaaraha iyo xafladaha waaweyn jiraan sanadka cusub dhowr maraa imaaday laakiin waxaan is iri bal jawiga maadaama uu ka duwan yahay jawiyadii hore uu ka duwan yahay marka habeen wanaagsan ayaan idin leeyahay waa isku soo laaban doonaa insha allahu tacaala